بسم الله الرحمن الرحيم waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay 11 bisha saddexaad 2019 booqasho ku yimid magaalada Boosaaso safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Soomaaliya Ambassador Yamamoto isagoo la kulmay madaxweynaha dawladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Deni iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada kulankaas oo looga wada hadlay arrimaha amniga dhaqaalaha iyo arrimaha bini'aadantinimada waxaa si qoto dheer looga wada hadlay loogana falanqooday taageerada dalka Mareykanka uu siiyo guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Puntland ee la xiriidha taageerada dhanka amniga dhanka kobcinta dhaqaalaha iyo xasilinta dalka iyo waliba dhanka arrimaha bini'aadantinimada shirkaasina wuxuu ku soo dhamaaday isafgarad iyo jawi wanaagsan